waan isbedelay waxaan noqday nin rag ah sababta ku noqday waxay tahay in aan xubinta taranka oo raga aan isku arkay hadda just saacan waxa ahay nin waxaana isku arkay xubinta taranka anoo gabar ah sidee ku noqday nin rag ah oo aku yeeshay xubinta taranka ee raga habeenkii markii ay seexatay ayay isku aragtay subaxdii iyadoo oo nin ah xubinta taranka ee ragana ay ka soo baxday qof hurday oo bini aadana oo dumar ah oo jiiftay baa ahaa laakiin maanta waxa ahay nin rag ah xubinkeedii taranka ee dumarnimo ayaa isku bedelay nin waxa ayna la yaaban tahay mucjisada ku dhacday gabadhan waxaan rabaa inaan idila walaago qiso halis ah oo igu dhacday taas oo aan rabo inaan dadka ku nool dunida dacaladeeda aan la wadaago qof walibana ilaahay heybad u gaaro siiyaa laakiin aniga mid aan heybad ii ahayn kuleytu waxay tahay aanan aqoonin inay qiso tahay keliya u qaata ani habeenada ka mid ah waan iska seexday codkayga sidaa ku dareemaysaan waxaan ahaa qof dumar ah laakiin hadda waan isbedelay waxaan noqday nin rag ah sababtaa ku noqday waxay tahay in aan xubinta taranka oo raga birito qof kastoo markuu kaa hor imaado waa lagu caynaa kaniisaa tahaa lagu dhahaa waxaadan ahaynaa lagaa aaminaa anyway qof waliba ra'yigiisuu kasoo dhiiban karaa commentigan adinka iskale oo fasaxantii qofkii amaanayo iyo qofkii caynayo iyo qofkii ii soo duceynayo anyway hadda just saacan waxa ahay nin waxaana isku arkay xubinta taranka qofka bini aadamka ana intuu dunida ku noolyahay wax walba uu arkaa sida aan isugu arkay iyo sida muxuu ahaa toole ee wax noqdeenna waad ogaan doontaan anyway marka hore gabar ahaa dharkan waxaa xiran jiray markaa gabarta ahaa barnaamijkan inaa duubo markaa go-aansaday waxaa igu soo dhacday inaa ka falanqeeyo ama aa ka fikiro anoo gabar ah sidee ku noqday nin rag ah oo aa ku yeeshay xubinta taranka ee ragga caqabad kastoo kusoo food saartana inaad dad kala sheergaraysid ama la ogaado maskaxiyanay muhiimkuugu tahay aniga waa wareeray stress badanaa maray waan walbahaaray dhowr bilood ka hore ahayd muddo waan cabursanaa alxamdulilah maanta way ii hirgashay inaan ka hadlo barnaamijkaas intana waxaan usoo fariistay inaa qof bini aadan ani aan muxuu ahaa toolay weydiisto aan weydiisto wax oo muxuu ahaa toolay caawinaad ah uma soo fariisanin qof hurday oo bini aadana oo dumar ah oo jiiftay baa ahaa laakiin maanta waxa ahay nin rag ah aynow sidaa ku noqda ani wax walbana waa qisadana waa la arkaa haddaba daawade weligaa ma aragtay mucjisadan oo kale haddii aad la yaabtay islamarkaana aad la amakaagtay fadlan sii sheergaray muuqaalkan si uu u gaaro qof kasta oo Soomaaliyeed islamarkaana uu uga falceliyo mucjisadan gabadhan ku dhacday oo ay ka sheekaynayso islamarkaana xubinkeedii taranka meesha ka korreeyda uu ka soo baxay xubin kale oo nimeed islamarkaana ay la yaaban tahay waxa gabadhan haysta haddaba haddii aad la amakaagtay ama aad la yaabtay mucjisada ku dhacday gabadhan waa inoo muhiim in aad muuqaalkan sii sheergaraydo si culimada iyo sidoo kale qof kasta oo Soomaaliyeed uu waxaan ahaa markii horeeto gabar qof dumar ah hadda waxaan ahay nin rag ah halkaas waxaan kusoo macsalaamiyay dumarnimadii haddana waxa la igu soo dhaweyn doonaa nin rag ah inaa ahay